إلهي ورتدي موسى وان قبل كل وين إلهي بقى قبته إلهي كو قبته وحلا وحي وشيغان جيري oo dhan baa Ilaahay u dhan kala rogay Muuse power buu sheegan jiray faan ciidan buu sheegan jiray inuu dalka xoog ku difaaciyo sheegan jiray ku faraxsan tahay marka in ma ku faraxsaniyay saddexda arrimood inuu Muuse uu shakhsiyan u fashilmo hawo ku faraxsan Muuse digdigtiisa iyo kibirkiisa uu umada ku fadhiisan weey laakiin Muuse laakiin sheego yikaadi Muuse Somaliland ma fashilmin Muuse way ka haraysaa hortiina way jirtaa maxamed abiib hadaad maanta adigu midida daabkeeda ahaan lahayd oo aad madaxweynaha Somaliland ba ahaan lahayd sidaad u xalin lahayd arinta laascaanood أنا واحد كم إذا هيدتك ما درتي سيمبتيك كارك أو هي عيدك مركان أوليني بقول والظروف قرية ويلا نوع مركان ما واحد دونيسا إن أردت الأسعار ولا كلايبورا نو ما مرة أنا كشيء جوه رأيه ولا هيبة نبتقلي ويقر شيء جوه رأيه إذا قفنا لو شيء سهجة جيان دوني أو سدو شلون ولا سكت دون ولا لكن مركان تهاي قف كهمية يينا جبهة سمايسو إن ضد جالسيسو إن تسلايا أنا دونيسو تهينا قفنا ولا يسوي مسعوتين ضد كلا يصير سعوتان you are killer بات هيدا I'm not killer أنا Somaliland تطبع قبصدي لواتك سون مكوجود بتشيل باق قبصدي عجيبة أون إلهي ندب نوصل مرن عن إلهي بريو تشيل لي هذا كنا فقيسو كدو كشقيسو إسكنا وهيوس كدقني دلك ضيّة دلك دنوا لكن حل بان ضدك أنتوا ذا بدن وحي أمسينا سياسيين تين Somaliland معارضية محافظين إذا إسلامين يمكن واحد إذا إسلام حول الله دعي المسوق ما سوق لقلي aduu golaha wakiilada 2 sano ka hor baa timi iyadoo deyn la gulayay saad hor u sheegtay maanta gurigan qasriga baad ku jirtaa oo aad dhisatay 2 sano gudahood mushaharkaagan wala yaqaan xagad ka keenta musharax cirray imka maxaad uga carartay wadani kulantii haboon idilhaantii in ba meel kasto aad joogtaan kuna soo dhawaada waraysi gaar oo la yeelan doono xildhibaan Maxamed Abiib oo ka tirsan aqalka golaha wakiilada ee Somaliland Maxamed Abiib waxaanu ka waraysan doonaa xaalado kala duwan oo ku saabsan Somaliland ay xilligan ku jirto xildhibaan marka hore ku soo dhawow Galayd Media waanu kaaga mahadcelinaynaa inaad waraysiga nasiiso soo dhawow bismillaahir rahmaanir rahiim xasan ma santa aad iyo aad ma santahay adiga iyo ma aragtay Galayd Media ba oo idin ma naqaya aad bal xildhibaan ma hasan tahay inkastoo oo dhawaan aad hadashay oo hadal dheer aad jeedisay oo turjumaado kala duwan laga bixiyay bal xaaladda guud ee Somaliland ka waran xildhibaan الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين runtii xaaladda guud ee Somaliland waa mid maanta dadka dheergaradka in la weydiiyo oo kaliya tama ay garan karaan xitaa dadka caadiga ah baa garan kara halkaynu marayno runtii xaaladda dhaqaale adag baynu ku jirnaa ma aragtay xukuumadda Muuse Somaliland dastuurka inoogu qornayd hay'ad xuduudaheedu ay haayeen ma aragtay xuduudihii 60kii ma aragtay maanta aynu wada hadlayno wax badan baa ayaa iska bedelay xagga nabadgelyada iyo doorashooyinkana ma aragtay culays badan baa soo fuulay oo wada ogtahay ma aragtay ilaa imika maanta iyo shalay waa la dejiyay lagu wariyo ilaa gacan libaxde oo wadnihii wadanka hadda inay jabadi fuusho ayaa ay gaadhay inta waxa ka badan in systemka doorashooyinku ay gaadheen markii ugu horeysay in ma aragtay odayaasha dhaqanku ay ka garan qaan wiilka odayaasha dhaqanku nabadgelyadu bay gacanta ku hayeen oo meeshii waxa nabadgelyaa walba yagahay haday qof tahay haday qur tahay haday qoon tahay iyo haday qabiilo tahay iyagahay arrinkaas iyagahay jir maanta waxa ku darsanay ka doorashooyinka marka waxa ku tusaysaa in ma aragtay dadkii siyaasiyiinta iyo hormuudka ahaa ma aragtay waliba kuwii khaasatan talada gacanta ku hayay inay taladii gacantooda ka baxday eedaa yaa leh xildhibaan ma baarlamaanka leh ma xukuumadda leh ma mucaaradka leh yaa leh eedu dadka ma dhaxaysa wax iska leh dalku hoggaan buu leeyahay xukuumad buu leeyahay waxa xumaadayna waa mas'uuliyadii xukuumadda ma jiro sharci baarlamaan ka soo baxay dad isku dileen mararka qaar dawad dhacday in baarlamaanadu sharci soo saaraan dadka isku dilaan isku dhuftay laakiin fulintii weydii laakiin maadaama aad dhaarkii saddexaad ee wadanka atiin oo aad baarlamaankii tihiin soo idinkuba mas'uuliyadda qayb kuma yeelanaysaan wallahi inaan waxaas oo dhan xakamayno oo ma aragtay haddii dagaal la geliyo guluuf saxaabeed waxa dhibaatada ugu weyn noo geystana waa dagaalka weeyaan aan loo baahnayn ee ku bilaabmay ciyaarta iyo yeelka ay ku bilaabmay
يقورتان جبني يا هبل سفر سبلا ما فهمت ده أنا وحنا راجعين تابتي تنايل لها وركد داية رجول على روح كل عامو ما جبته soolna dagaalkaa soolna dadka waxa la isku haystay maalintii ugu horreysay la isku haystay war cidaynu meesha isku haysanaa waayo aynu wada hadlaynaa waa shacabkii soola mudaharaad iyo banaanbaxay baan waxa la wixii kale ka dambeeyay iyo wixii kale ma adaragtay arrinta dhaliyay wuxuu doonaa noqdo laakiin dadka mudaharaad dadkii sool baan soo marka de madaxweyne Muuse maalmaha aad buu cabanaaday waxaan maleeymka inuu miirsaday oo sida islaamku u fikirayaan maleynaya maalmaha wuxuu islaa cid walba de wandar baaxiyada maaniga de lay biqi maayo aniga hadalkiisu way taas ku koobnaa ma garanaysa marka xaaladda aniga ba halka ina gaarsiisay xaalad dhaqaale dadku ma adartay markaad magaalooyinka aragto aad bay maciishadu u sare tagtay cid waxba iskama weydiiso golaha iyagu waxba iskama weydiiyo kirooyinka guryaha iyo biyo la'aanta wadanka iyo ma adartay xoolaha si yaraanaya dadka baadiyaha ma adartay iyaga dhamaantood way soo barakacayaan special how badnaada gobolada bari dadka imanaya xoolihii waa dhamaadeen dadku soo barakacay magaalooyin bay imanayaan dawladdu wax iska weydiisaa ma jirto maaha intan 40 qof ee maartay Soomaaliland gibiga waxay noqotay inay ka shaqeyso doorasho wax la yiraahdo laakiin noloshii caadiga ahayd dadka caadiga reer Soomaaliland maanta meel adag waliba waxa ka sii daran waxa xaaladaad ku sugan tahay hadaad rajo u leedahay rajo oo isleedahay berri baad ka baxaysaa iyo saadabaad ka baxaysaa ragga iyo dumarka iyo carruurta inta way xamilaandeen ما فهمت حولها حملها وبرت لو قدنيو ديبي قال markay beertu bislaataa ku bari goynti rajadade ayaa loo kaxeeyaa marka maanta dadku markaad dhageysato way aad bay u marxuun laakiin anigu waxaan arkaa iftiin badan oo ka dambeeya madowgaas maanta taagan iyo ka muuqdan arkaa oo ka wanaagsan kan hadii inagu isbedelka ma aragtay dadku ay iyagu dhali waayaan ka ilaahay baa imanayo dadkani wadad wanaagsan oo qalbi wanaagsan weyn Soomaaliland deganaa shacabka oo samir badan oo dulqaad badan waxaan rajaynayaa inuu ilaahay maanta dulqaadkooda iyo samirkooda ilaahay wax ku siiyo because waxa laga buuxiyay kuwii u faanayay kuwii iskaga dhigay balaayada kuwii iyagu inay la jecel badayhiin u haystay kuwii dadka iyagu leeyihiin u haystay baa fashilmay markay fashilmaan ragga ba ilaahay dadka ku arsaaqay oo samirkooda iyo dulqaadkooda iyo wanaagooda uu ilaahay uu wax ku siinaya ay samrayeen ay lahaayeen haddaan qadno waan jooginaa weer Soomaaliland darisban marka wax rajaynaynaa Thailand wax ku siiyo arrintii la socodka hadaynu ku noqono waxaad ogtahay in Puntland ciidamo ka tirsanay sool yimaadeen oo ka dagaalamayeen in ciidamo kale oo meel ka yimi ay yimaadeen la socod waxa soo dhan adiga kuma muuqan miya maya si fiican bay ugu muuqdaan laakiin maxaa keenay wallo yeeray madaxweynaha u yeeray dadka sidoo uu yeeray ku sheegay imika sool dadka jooga dad aragta markay hadlayaan waxaan marka qaar soo iyaga bay naga dawladso way cadawga cidaad siisan wal qaybiyama ayuu jeedaan iyagu de waxay wal qaybinayaan wax leey reer hebel kuma jiro Soomaaliland isla uu yeeray xulay soo raaca gibgiina macal shanta xamar fadhiya macal xalsiga maxamed uu yeeray waa khudbad cadaan oo madaxweynuhu jeediyay waa duubteen ragiisii baahiyood ka mitiin hadalkaas isagoo shantiina madaxweyne xamar fadhiya soo raac waa iska filanay wuligii taariikhda maarag nin uu yeedham xal yiraahdaa dadka ay sayaan soo ururiyo ila soo raac Mareykanka kuma sameeyo markuu wadan yaro Afrika ku duulayo weerar imika haduu wuxuu rabaa inuu kala furo ECOWAS maartay xulafada galbeedka Afrika ka jirta ayuu rabaa Niger inay isaga Faransiisku ay ka saaraan say u weeraraan taynaga madaxweynuhu uu yeeriyo xulay soo raac iska ka filan ayaa biyaashii soo wareystay dadka lama ari magaca qabiilkee lagu soo dagaaltagay Muuse sameeyay iyagu bay sameeyay waayo maalinta haduu Puntland haday soo raacayso oo niman daaroodii soo bahaysanayaan 20 sanadood safar ka soo bilaabmay suucnooni la taqarrasoma ismay soo bahaysan meel lacag ku reemayna inteena u banisayna wixii naga soo jeeda kolba soo Muuse u yeeray aragti xumada u yeeray siyaasad xumada u yeeray dadkaaga inaad dad kale ku ladho ilaa reesol dadka inaga hayn haddii laakiin reesol reer Puntland raaciso oo maadartay reer qarna raaciso oo reer maadartay raaciso de walaalo waa isku kaas waa lagu yeeriyaa marka hadii dad soo baahaysta walaalkii laakiin waa loo yeeran inuu qaba dadka maxamed abiib hadaad maanta adigu midida daabkeeda ahaan lahayd oo madaxweynaha Soomaaliland ba ahaan lahayd sidaad u xalin lahayd arrinta la socod
ma maanta mise bilowgii maalintiisa yeela labadaba ka soo qaad maalintii bilowgii reer sool qof baa la dilay qofkaa la dilay dadkaasi gar iyo gartaro qof waa lagu dili karaa suuqa Hargeysa kuwa lagu dilay oo ay dadku mudaharaadaan waa askar la garan ama cidii shan la garan bay ka mudaharaadaan waa qofku qiimuhu ku leeyahay iyay dadku habaxsanaan dareemaan waxay rasuul khayr qofku sulxiga ayaa wanaagsan dadku markay muddo inaad garowshiyo la siiyo qof baa ka dhintay garowshiyo si ilaah walaalnimo si ilaah wax kar joogan u yeedh lah jidku u maray madaxweyne daahir yaal ka yimid kasi wanaagsan baan umri lahaa oo oon aamino waar inagu xoog waxba kuma kala qaadan karno xoog kuma midoobi karno xoog waxba kuma wada yeelan karno walaalnimo wax ku wada yeelan karayna dhacdadana way dhacday oo dhacday kooban soo ma okay intaasoo dhacdo ku horeeyo iyagu si weerkayna way jirtay inaguna si weerkay maamulkuna si weerkay dee dadku wax ka badan bay ka heshiiyeen dee waxaan ka wada kala shaqayn lahaa waxaa sidii meesha looga saari lahaa iyaguna ay systemkoogii dowladoodii ay uga mid noqon lahaayeen 13 garaad markay soo saareen go'aanka ay yiraahdeen Soomaaliland naga baxdo oo og ha tagto go'aan u ceebad qaadan leh actually oo ka tagto oo bal isku ma haynin waxa la isku hayba baash maxaa la yiraahdaa magaaladan maxay cadcatay maantana community Ethiopia 20 kilomitir bal magaalada dib uga qad 5 kilomitir waxaas mar dambe oo tar wadhay oo dhibaatooyin dhacay baad soo degarmaysid haddii dadkaagu ay ku raadaan waan tashanayna naga qad haddii maalintii laga soo qaado way tashan lahayn culayska dhaqaale iyo culayska alooska iyo askarta timid iyo intaasoo kun oo qoriyo yimid malaayiin timid haddii laga soo qaado xitaa og la keenay ma yimaadeen wala xiisa dhici lah soo garmaysid dadku markay xiisa dhacaan ay arkaan inaad yeeshay oo aqbashay iyaguna dadku midakarkay ay aqbalayaan dadku midakarkay aqbal wad yeeshay ma daahir yaal maalintii markii isaga la weeraro madaxweyne xabad la dhacay wasiirihiisa qaar la joogay baa yiri waa weerarsigu bixiyay dalkiisa ciidan geli wuxuu ma gelin maayo ciidankii ka baajiyay waxa keentay inuu mafaatiix helo ku furtay magaalada mafaatiix oo yiraahdan danika la xajalo idin qabay weydin turay weyda sharfay weydi karaamiye teedina karaameeya marka waxa qaba waa saaraya ciidanka hadaan raadaan baabuurta saareynay bay oran lahaayeen wariska daaba in hadda ciidanka Soomaaliland oo uu jooga wilna xiisadii la ascaanood way taagan tahay marka intayna arinta la ascaanood ka bixin hadda maxad xal u aragtaa horta de ilaahay horta de Muuse waan qaban kari weynay ilaahay baa qabtay de ilaahay ku qabtay wax alla wixii uu sheegan jiray oo dhan baa ilaahay u dhan kala rogay Muuse power buu sheegan jiray faan ciidan buu sheegan jiray inuu dalka xoog ku difaaciyo sheegan jiray ku faraxsan tahay marka in ciidamada ku faraxsaniyay saddexda arrimood inuu Muuse uu shakhsiyan u fashilmo hawo ku faraxsan Muuse digdigtiisa iyo kibirkiisa uu umada ku fadhiisan weey laakiin Muuse laakiin waa sheego yikaadi Muuse Somaliland ma fashilmin Muuse way ka haraysaa hortiina way jirtay soo garmaysid hortiina way jirtay Somaliland Muuse ma raaci karto laakiin uu dhaawacay rag dawey Somaliland leedahay wala daweyniya laakiin ninkaasi taariikhi uu sodonka sano umada ku wareerinayay maxay baan ahaayay libax baan ahaayay maxay baan shubi jiray balaadi way de wixii dhaqaale uu noogu dhisi waayay hanti uu noogu sameyn waayay lacag uu noogu sameyn waayay umadu ku midayn kari waayay raganimadu sheeganayay wadankii la xajacladu kala ha Somaliland buu ugu dambeyntii ku difaaci waayay ugu dambeyntii wuxuu safe garin kari waayay qalabka iyo lacagtan aysan u safe garin kari waayay kuwa caynkaas inay taariikhda ku dhintaan aad baan u jecelahay anigu oo taariikhdu disho kuwa caynka faanka badan leh beenta ku nool ee dadka sameeysta inay taariikhdu disho inay marag u gasho taariikhdu dhulka dhigto aad iyo aad baan u jecelahay anigu isaga iyo kuwa la midka kaligiina ma intaasoo nin oo xoog oo isku dayna umada xoog ku xukuman taariikhdu disho oo dictator soo dhaqanka dictator Muuse waynu dooran sidii dad doortay noolamo dhaqmintay tallaabadii la qaadaba haduu wariye tallaabo qaado haday cid meel ka soo banaan baxdo qorta jabi walaad waadi uga soo qarqaysa ciyaarka madax laga wada tooganay waliga madaxweyne sama sameyn askari meel difaac iyo xabadu ka fikan jirtay wad garanaysaa xabad fakada oo dad qof idishay laakiin dad bareer loo sameeyo marka taas wata midna wata ciidanka iyo ku saabsan xaaladda dalka ciidanku iskii uma fashilmin iskii uma jabin wax isaga ka yimid marna waa min cidi midna waa marna wax kaaga timaada dhibaatadu dibadda marna gudaha ka timaada ciidanka siyaasadda xumada Muuse iyo kuwa hogaamiyaha fashilsan laakiin ciidan strong oo isku dhex jira
oo maad aragtay discipline-kiisu uu wanaagsanaa ciidanka Soomaaliland ee militarigu taasi ummaduna way kartay dadkuna way kareen bas faanta wuxuu ku joogayna laakiin ciidanka markay dad jaahil qabsadaan aragtida ka lumaysa aragtidii luntay iyo hogaamin xumadii ba keentay ciidanka boqolkiiba 5 nin ugu sareeya amray iyo 5 jarna ku soo xiga dhamaantood wada of HBhan ragii wax loo soo baray wadanka loo diiday halkan wada joogan halkiisa wada fadhiyaan dhalinyaradii bas faanta halka ka soo horjeedanaya joogay 25 jiradeed maskaxdoodii iyo muruqoogu buuxday ayaa joogay hor joogay kuwii baa weli sii dul joogay anu halka ugu horeeyana waxa baarlamaanka ka tirsanay anu waxa kamid ahay dadka ma aragtay sympathy gaarka ah oo ciidanka markaan ololeynay baa ku waa duruufaha guriyooga yaalaan uga miisaaniyadii dhaweytole sanadkii dhaweytole nasiibana safar ku maqan bay timid waxa rabay 5 sanadood inaan ma aragtay soo jeedintayda iyo ku dagaalka miisaaniyada ciidanku inay noqoto arrin continuous inay noqoto ayuu qorshaygu ahaa dabada hayo oo sanad walba ciidanka loo kordhiyo sanadkii dhaweytolena si wana safray miisaaniyada waqtigii waliba iyadoo dib baa loo dhigay la igu safray markii daba hore loo soo dhigo la soo geliyay wanagi 30% u kordhinay imika shaqada ugu horeysay ciidanka morso bood noqonaysa waxay noqonaysaa in ciidanka halka jooga dib u habeen lagu sameeyo dadka wixii waaweyn aan dulmiga ka deyno odayaasha waaweyn ee waqtiga dhaaf inaan dulmiga ka deyno lacag fiican la siiyo bershan galaan waxa dambana la isku habeeyo la qaalo fiican baarlamaanka ku sameeyo lacag fiican oo qaata ciidanku waa lagu dhexnooliyay ciidanka oo ragga way jabiyeen kula hayba miisaaniyada ka qayb gala oo wax ka qaata taydi 7% lacag badan ma ku bixinaa hay'adaha ammaanka waxaad ku cadeynaysaa in waxaan ku cadeynayaa lacagtaas inaan xildhibaan baarlamaanka waliba guddiga dabagalkana cadeymaan oo yaacad waxyaabaha mamnuuc ee lagu qarsan ciidanka waxa kamid ah adduunyada ma jiro ciidan qaran oo Mareykan ha noqoto Yurub ha noqoto Ciraaq ha noqoto Falastiin ha noqoto Soomaaliya ha noqoto wadanka Faransa halka argixisayaan ciidamadiisu fayl bay leeyihiin waa la yaqaan tiradoodii iyo arrinkooda waa la yaqaan maalin walba idaacadaad ka dhageysata iyadoo la leeyahay intaas oo kun askari baa soo baxay intaas ku biiray tirada ciidanka intaas oo xiri jooga soo garmaysa waa la yaqaan tirada ciidanka hay'adda maxaa la yiraahdaa soo saarta maxaa la yiraahdaa arrimaha ciidamada maxaa la oran jiray ayaa habeen walba sheegta tiradoodii ay tayihiin inaga waa sir beel soo toosir loo dhimad garanaysa waa ku qarsiga musuqmaasuqa weey waa ku qarsiga caaglaha weey marka kuwaas arabna maanta ina ka saarna ciidanka laga saaro oo ciidankeenu noqdo ciidan la yaqaano oo xiriya ku jira oo xooga oo askariga militariga uu 42 sano ku ritaar garoobo si uu noqdo askari majuura oo xoog u haya waayo markaad aragto ciidan boqolkiiba 40 ama 30 kamid chronic yihiin nin kasta macaan bahaya qofka bini'aadamkiina markuu dagaal galiyo inuu macaan ku dhacadeeyo xaalad adag buu ku jira waa si dhib yar anu waxaan aaminsan rag badan inuu macaan ku dhacay si qori u ridayeen ama meel u lugeynayeen marka daryeel waayeen marka walaalo ciidankeena iskii u muujibay rag baajibi raggii jabiyeen waa kuwa halka jooga way madaxweynuhu ilaa maanta kama hadal golaha iyagaan ku nool gudoomiyaha golaha wakiilada noogu yeer fadhi xiran noogu yeer badan la nooguma yeerin channel nooguma yeerin wasiirka ashadii nooguma yeerin iyagii baa wali ciidankii ay jabiyeen ay xumeeyeen bay ka dul batarinayaan marka xildhibaan maadaama aad rol leedihiin oo aad door leedihiin oo aad baarlamaankii tihiin oo wakiiladii tihiin aanad aaminsan tahay in madaxweynaha iyo xukuumaddiisu fashilantay waxa jira talaabooyin baarlamaanka u bannaan maxaad u qaadi lahayd laba qodob baa jira xasano walaal golayna waad ka waraysaa way markuu hadduu hoggaanku xumaado dadkana way la xumaadaan goluhu maalin walba aniga iyo mudanayaal kooban waxaan rag gale war loo yeero madaxweynaha fadhi xiran loogu yeero badii la doono hal weydiyo xaaladda ciidanka xaaladda wadanka la weydiyo hal loo yeero janaka military UCK kaashaaniga hal weydiyo wixii dhacay kuwa kale ka soo horjeedo kullo ma yeeri aynu xaalad baynu ku jirnaa qarsanno 4 sanadood baynu qarsanno ku jirnaa 5 sano ku horeysana qarsanno ku jirnaa maxay noogu hagaagay waxbay noogu hagaagay isla xisaabta wax ku hagaagan marka ninka dambiga gali dambigiisa lagu cadeeyay ku hagaagan laakiin anaaba la eegayaa saak wariyaha la eegayaa awoodii lagu shaqeyn lahaa wax lagu hagaajin lahaa dadka loo isticmaalayo wax hagaajinay marka baarlamaankii dawadilkiisu xaaladiisu waa dhinacyo dhinacyadii adduunyada soo ma shaqeysa adduunyadu waxay leeyihiin dan guud bay leeyihiin waxay wada ilaashadaan bay leeyihiin Somaliland dad baa qabsaday 20 sano ugu dambeeyay jeel baa qabsaday ajiiba oo ilaahayna dib inoo soo mirin aan ilaahay bariyo oo ah jeel la yiraahdo ka nafaqayso ka dhoo ka shaqeyso iskana uu hiyo iska dhignin dalka dayay dadka dan waa hadda ma garatay wax allaaliyo wuxuu ummadda u qabtaan aan jirin runno ku sheegaya ummaddu
waxa danta gaarka la helaa waxa san wariye ahaanaya uu wariye qurux badan ahaanaya uu kamaradaha fiicanaysanaya markii danta guud hagaagsantay danta guudna maxaa la yiraahdaa waa nabadgelyada waa wax qabadka waa isla xisaabtanka waa ilaalinta ciidanka waa ilaalinta maadaragta waxbarashada waa ilaalinta tayada wanaagsan ee caafimaadka waa ilaalinta hooyada waa ilaalinta ilmaha yar baa la yiraahdaa danta guud la yiraahdaa marka inta la ilaaliyo qofka mas'uulka inta uu garto ayuu maadaragtay danta gaarka la helayo maxamed abiib xildhibaan nabad ku nool qurux badan noqonaya kuwii lacagtii amniga baabiyey kuwii booliska naga baabiyey kuwii waxbarashada baabiyey kuwii caafimaadka baabiyey ayaa geesiyaal noo qoran waxaana la rabaa dadka Soomaaliland jooga shacabki waa dad xariira oo sharaf leh oo karaamo leh maalin walba beentii kuwa u sheegayaan bay rumaystaan ku samraan horta ilaahay samirkoogu hoojin maayo maanta waxa halkii barxad cas ayaan maanta u leeyahay inay curada khayr leh kacaan ciidan la arkay cishaan dhaweyn wax isbedeli ciidan faraweyn cagta ay dhigbu nafsigu ka soo carcarsaday isbedel bay manaya waxa soo dhan meel dhaweyna dhaafayaan ilaahay waxaan rajaynayaa inuu dad fiican ka soo saaro oo ummadan abaal siiya oo shacabka abaalkoogu celiya laakiin xildhibaan dadka intooda badan waxay aaminsan yihiin siyaasiyiinteena Soomaaliland mucaarad iyo maxaafidan aydan isdhaamin imika waxaad eedanaysaa in xoolo la dhacay in musuqmaasuq la galay aduu golaha wakiilada 2 sano ka hor baa timi iyadoo deyn la gulayay saad hor u sheegtay maanta gurigan qasriga baad ku jirtaa oo aad dhisatay 2 sano gudahood mushaharkaagan waa la yaqaan xagad ka keentay very good wish way anigu maalintan golaha imiday bangiga dhexe dawladda deyn baa ka qaatay deyntii laamika ayaa laga jaray 5 milyan baa laga jaray jagada ma siistay 20 dollar baa laga siiyay maalintii banka dawladda ka qaatay maanta guriga waxay dhisay shirkadda bangiga la yiraahdo Premier Bank baa dhisay ina Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir oo bank haysta baan u tagay waxa ku yiri war walaal anigu xildhibaan iska miskiina baan ahay laaluushadii lacagaana dadka ma qaato waxa ka hado adigana halgamaaba ku dhalay anna waxaan islaahay dadka ka duwanoo dawrsoonow yarsila walaal waxaan ka codsanayaa inaad siiso jaga yar baan haystaa guriga dhisto bilaa dulsaara runtii halgamaaba dhalay nin sharaf laba dhalay waa iga aqbalay Premier Bank waysi waad u tagi kartaa waraaqaygii baad sheegaysaa guddiga baarista gal ahta dowraha gali kara waa soo ogaanaya mushaharkaygana warqadii aan ugu saxeexay mushaharkayga intuu qaadanayo waliba aan ku riday walaal mushaharkii intaas biilkii iyo arrintii xafada intaasina u baahantay intaasina uu inta bixi intii uu bixinayo waxaan bixiyo iyo intaan qaatay iyo lacagtaan ka qaatay dhamaanteed su'aal fiican bad weydiisay gurigan baan baa ku dhisay bank Premier Bank baa dhisay shirkadda Sambro bartay meesha ku dhigsan buu siiyay ma fahantay waa banki waliba inaad ka ka codsanaya oo soo weydiisay Maxamed ay lacagtan ma ku qaatay deyn qaab ku lacagta u bixiyo tirado inay kaaga jawaabaan waa farayo si cadaan oo transparent kaaga jawaabaan haddaan dhinto heshiiska baan galno waraaqihii aniga sharci waxaan imid dambiinan waraaqihii gurigeyga haysta banku anu guriga sharci uma haysto maanta hadii xilku iga dhamaado baan lacagta bixin waraaqihii bank haysta wala wareega way iibsanayaan wixii baaqaysanayaan waana ku heshiinay marka anigu su'aal fiican bad weydiisay aad iyo aad ma santa xildhibaan ka gudbinaa arinta laascaanood iyo arrimaha ka gudbinaa arinta doorashooyinka dhawaan waxa ka soo baxay mid kamid ah beelaha Soomaaliland baa go'aamo soo saartay muddo dheer oo khilaaf jiray kadib go'aamay soo saareen arinta doorashooyinka ay doonayaan ku soo afjaraan adiga sidee kula muuqata wallahi de waa arin murugada la dayn wadanku sharci wala nidaam bulaate laakiin haddana hadii lagu kala badbaadiyo caawa alxamdulillah rabbil caalamiin buurta laga soo tagay maalintii dhawada anigu markaan hadlayayna runtii halka arrinka deena sulx maradi wixii lagu kala bixi way noo qornaatay waxa la war koran yar hayna inta buurta laga soo tagay balayno eegna buurta in laga tagay warkaas dhamaado warkaasi official cid u shaacaysan ma hayeen laakiin wararkan ay dhamaantood wax sheegeen arrinkii buurta dhamaaday ilaahay baa mahad iskale nabadgelyada wax kasta oo la siistaa soo dad madgaran dadkii iyagoo nolosha ku adag tahay oo wax kasta ku adag iyo walaaltii adan nabadgelyada darro ku bilaabanto waa mid subxaanallah ma garanaysa dadku iyagoo qadaya way gurigooda way fadhi karaan laakiin hadii guriyahooda laga saaro oo banaanka u baxaan kii wax haystay iyo ka waxba aysan isku mid noqonayaan marka wax kasta in nabadda la siisto de aad iyo aad buu wanaagsan tahay mar hadii aan wax la wartay buurta ma laga degi maayo hadaynu wixii bay soo daraacino koran u hayn hadii se buurta laga baxay maanta alxamdulillah rabbil caalamiin in adiga mabaadidaada siyaasiga hore waxaad u ahayd wadani 2017 baad ka baxday haddana kulmiyaad ku biirtay haddana waad ka baxday wadani baad ku biirtay haddana kahba joogtaa bal mabaadidaada siyaasiga maxamed abiib xagee lagu ogaadaa anigu horta waxaan ahay nin
nuur iyo iftiin raadinaya baan ahay maad maqashay saxaabiga la yidhahdo salmaan alfarisi faris buu ka dhaqaaqay 20 sannadood nabiga hortii alayhi salaatu wasalaam intuu soo bixin buu raadinayay kolba wuxuu tagi jiray wadaad baa loo tilmaami jiray wadaadkaas ku dambeeyay diintii kristanka ku toosna uu arkaa inuu khayyayo xoolo urursanayo uu ka dhaqaaqa mid kale uu tagaa uu arkaa inuu wax ummadana cadaalad ugu baaqo inuu cadaalad sameeyay uu ka tag aakhirkii waxa nin baa u dambeeyay nin wanaagsan buu helay markuu dambeeyay ninkii baa ku yidhi magaalada la yiraahdo nabigi ilaahay ku sheegay kiitu dibay khaatimul anbiya wal mursaliin wuxuu ka soo baxayaa dhulka timirta leh madiinu tagay maalintii nabigu soo jiro isagoo geed in yahuudiya adoon oo saaran buu yimid dalac albadru calayna qaadiyan reer madiina geedkii biska soo tuuray nuurkii markuu nuurkii arkay dekmu beelin uu raacay nuurkii uu dasay ku raacay marka nuurku imka waa asxaabtii wanaagsan anigu waxaan ahay meel wanaagsan oo ummadana ka hagaajina raadinaya hadday meel istaagto deema iroonaya halkaan ku dhamaysanaya hadana meel kale wanaagsan baan raadinaya hadana meel kale waayo dalkeena hagaajiyaan doonayaan wanaajiyaan rabaa imika halka joogtaa imika daano ka baan joogo wax sila halkaas yaa maanta de urradii baa la furay Soomaa ragga halka wax isku darsaday badan baa kamid ahayd ee xooggaadii marka wadana waad kala dhaqaaqdeen dee wadani xisbigii ilaahan wax rabaa inaan aragtida wadda ka qayb galo hogaankii dalka qayb gala doonaya because waxaan isbidayaa inaan wax hagaajin karo dadku wax hagaajin karaan isbidayaa inaan wax hagaajin karo oo saddex shay baan ugu aamsanahay ku sheegaya horta anigu wax maasuq la yiraahdo ilaahay hadduu iska soo gaarsiiyo ama in ayba meel xukumiya aragtay horta waxa dalkeena dir waa maasuq lacageed weey inuu nin walba jeeb ka dhashado uu ka kala gashado uuna hooyadii iyo aabihii u danyeeyay uu xafiiska dawladdu duusanaad isla ku guri dhisto horta kaasaani mabda'iya inaad ka dabar jaro wadan qodob labaad baa mabda'iya sidaad jidkaadu marasiyo cidaadu si dhex marasiyo kuwada wada socotaan waxaas macna ma leh soo garanaysid waad imanaysaa maalinta timaadad filna soo shaqeynaysaa qodob labaad baa lama shaqeeyo wadanka dibigiisa lama shaqeeyo waynu fadhinaa in la shaqeeyo oo laba meelood laga shaqeeyo culays kala saaro in xoolihii lagu noqdo xoolihii la hagaajiyo waan doonay aragtaa waan qabaa in dadkana wax beertaan waan doonayo beeraha lagu celiyo waayo gaajo ka bixi mayno intaynu ku tiirsanahay galaanka meel kale laga soo biyo ka bixi mayno dhul beereed 10% ka badan baa Soomaaliland jira 1% hal lama beero waxa doonay dhulka in la beero sida loo beeraan waa very simple waa in ummadda rajo loo abuuro waa in qofka hoggaanka ummadda hoggaanka uu noqdo qof ku tiirsan nolosha wixii dalka soo baxay ka bacdina campaign culus la geliyo oo beeru dhaqaaqan oo xasan $200 maalintii soo galaan ma daragtay qoryaal iyo doqosh iyo beerihii ficnaad ka beerta day ka beerta galeetiidayso deedna calaf maanta dadka gobolada jooga bariyo dhani dhul beereed fiican baa ku nool laakiin qalbigooga lama gelinin wax beeri karaan dawladdu kama qayb gelin xoolino ka dhamaadeen waxa idin la fadhiisiyo noloshooda la bedelo dawladnimadu waa dawladii wax weeyaan 1970 dadkii abaarta ku dhacday halka bari ku dhacday intee ratay ee xoolo dhaqatada ahaa u bedeshay beeraleyda ee geysay ku tuwaareeyay maxaa la yiraahdaa iyo sablaala iyo dhulka geysatay ya beeraley baa laga dhigay dadka marka xoolo ka baxan beeraley laga dhigo ka xoolaha iyo waa in xoolaha la fariisiyo maanta xoolaha dekedeena ka dhoofa 90% waxay naga soo galaan wadada Itoobiya ma wadamo kale naga soo galaan because neefkeena xoolii dhiigba xun baa ku soo dhintaan maba tarmaba dawladdu shaqo kuma leh xitaa beriyihii dawladii maxamed ibrahim cigaal baan xasuustay xoolaha la talaali jiray oo la daryeeli jiray oo laga wareyn jiray oo lolaha xoolaha uu jiray caafimaadku dib aynu soconaa garsoorkeena dib u socdaa imika bildan waxaanu daawanaynaa musalsal dood ka socotan dad musuqmaasuq lagu eedeeyo si publiga maxkamadda Soomaaliya u dhageysanayso inaga ka horeynay 1998 bal dhageysanay tuur cabdishaday iyo jarankii ciidanka la dhageysanay oo adartay furre alaana xariso la sii deynayo halkeen noo soconnaa dib baynu soconnaa maantana kuwa garsoorka jooga dhalinyarada digitalka wax soo barnay mobilkaasa dadka lagu qabsanaya iyadoo toog la xukumaya laga baqayo saa loo gariirayo 6 subaxnimo 40 askari lagu soo qaadayo bishaar ma qof idin shimaalti dhuutole xidhnay 20 gaari baa lagu soo qaaday waa xuqaayo ummadda la niyadjabiyo la cabsi geliya waxa loo sameeynaya oo dadka la iskaga dhiga balaayo waddanka ma ku difaaco muus maal dood buuras inanta ma soo qaadayo inanta meel laba askari soo qaadi karin askar baa la waayay subaxii dambe aan midna 20 gaari baan aragnay oo ma 20 gaari baa inanta lagu soo qaaday qof idish habdhaqanka caynkaas ayna marka anigu habdhaqanada caynkaayna waddankan ka tabarjara doonaya maadaama aan ka rabo raadca ku jira raadcadaasi maalin xasanow tog dheer bay la gelaysaa
maalinna berberay la gelaysaa maalinna boormay la gelaysaa laakiin intentionkaygu waa inaan ummadda hagaajiyo weeyaan labada cudurna ka dabartiro Soomaali meel joogtana wax dilay nin inta uu la joogo kala abtirinaya inta uu la joogo nin uu kala abtirinaya iyo nin wixii yara soo galbay soo ka cunayo ka dhigaysanaya labada ayna ka ciribtira doonaya marka labada inaad ka ciribtirto ma ka habad ku aragta waa jid kamida jidadka aniga mustaqbalka wax laga yaabaa inuu bak adu doono 10 sano ka haday isagoo odayaal kale deegayo oo inay joogaan inuu ba dhamaada laga yaabo Soomaa halkaas aan rabaa inaan u maro processka adu alkaad socota halka ugu sareysa u socota hayna waddanka hagaajiya doonay markaad hagaajinaysana waa inaad dawladda taafkeeda qabato hagaajiso hadii kale maanta bayna wax hagaajiyaan waan doonaya rag badan oo kale oo reer Soomaaliland way doonayaan oo iga fiican oo iga qurux badan baa jooga jiil iga wanaagsan baa jooga oo iga daacadsan baa jooga waa la laayay waayo ninka xun inta xun buu soo rusaa Soomaa maxaan rabnaa inaan inta naga wanaagsan la soo saaro oo dadkan ninka hogaamiye fiican buu soo saaraa tuug buu dhalaa khayb buu dhalaa adee waxa weeyaan maanta dad isku mid ah oo shaarkoogu isku mid yahay baa waddanka u shaqeeya waxa lagu tartamaa maanta maxaad qaadatay imika wax dartay anu guddiga dabagalka ku jira wax dagaal lagu dhaco wada takallaba su'aalaad ka weydiin baaris haddaan sameeyno hay'adda dhan ee hanti dhowrka la yiraahdo waddanka miyaad aragtay sanadkiina dhaafay hal qof wixii dhimaatay hanti dhowrka wuxuu xirtay liimad maqashay wariya tayleen oo mas'uuliyadda waa yeel agaasiman maqlayd maxamed ay bal xildhibaan oo imika gurigeyga ma weydiinaysid farqul question way inaad weydiiso la weydiiyo la baaro Soomaa guddiga maamul wanaagga inay weydiiyaan adiga baahin maamul wanaagga ma aragtay halkan joogtay awood buu leeyahay waana awoodii qaranku ugu tala galay qof weydiin maayaan waa la iska wada naaxay la iska cadaaday xooluhu umada la iska gurto hal qofna haddana sanadka dambe miisaaniyadu doonay hanti dhowri maalintii dhaweytoolaan golaha qayniya la arag soo socday dagaalada kula waa ninkan hanti dhowra lacagtii loo asiyo wuxuu ku qabtaan weydiinaan lahaday laakiin xildhibaan dadka Soomaaliland markay dibadda ka daawanayaan qof kasta markaanu xilka ama midida daabkeeda hayn wuxuu doonu sheegaa sharcigan ilaalinaya musuqaan la dagaalamaya cadaaladda kor sareynaysa maalintu xilka qabtaan arinta ugu dambaysa dadkaas maxad kaga duwantay adigu wallaahi waa arrin aad iyo aad u muruga badan waana arrinta shacabkeena dishay weeyane ma aragtay dadkeenu maanta markaan ololeynayna way nagu lahayn waa arrin abibu waxaa subayso waxba kama jiraan shaqigii dhaxdniyo islaama baadiya ku oran jooga qofkuna waxa leeyahay ma jiraan ballamo uu qaaday oo fuliyay markii anu ileen kolba inta laba jirintiisa la daaday alamaad wala soo darto xilbaan baan Soomaa waxyaabo ballan qaaday ba jirin warbaahintiinu inaad baadhan ba fiican maxamed muxuu ballan qaaday wixii ballan qaaday dad daawatan golama ka fuliyeen adeegtaan ba iyo war Soomaa anu waxyaabo ballan qaaday ilaa maanta la igu karnay haday kun jar wax kamid ah inaan shay duuduuba aanan cid waasicin baadjanta inaanan ka qayb galin waxyaabaha dadku ay sameeyaan ee ummadda xoolaha la dhacay mashaariicda leh anu maanta haddaan mashaariic doonto inta mashaariic doonaan la siin lahaa laakiin sharaf ima haynan sharciguna ma ogola inaan muwaadiniintii soo doortay kula tartamo birka yaala maxaa la yiraahdaa guddiga qandaraasida qaranka maxamed mashruuc u qaatman maqashay waa la wada qaatay saaxiibada wala yaacay habeen iyo maalinba dadka masaakiinta ku soo doortaa lagu tartamaya waanu kulama tartamayo dadka shacabka soo doortay iyo wali Hargeysa joogay Burco joogay ku boormay soo doortay kula tartay maayo anigu birka waxa duudub lagu ansixiyay shaqo ku malihiibaan dadka masaakiinta aanu hadlayaa baan ku riyo dadka inta jilicsan anigu dadka inta kale waxbis kuma ilaa maanta waa hadlaa oo taagana waa run Soomaaliland laba nin baa dilay nin maalintu Maxamed Ayuub nin maalintu wax doonayo maalinta dambana nin kala maanta dadku wax isku haysanaa deenikii matiida dadka ugu yaraan waa inaad dadku xuftiim soo sheegto haddii ninka xildhibaanka maxaa la yidhi sababta xasaanada loo sii xildhibaanku waa inuu wuxuu xasan shay kari waaye xabiib shay kari waaye faarax shay kari waaye shacabki waa inuu sheego Soomaa ku dhiirida weyn sharciga intaas la siiyay oo waxay muuso dadku la gabadaan dhaha ka saaraday intaan umada dadku ay ka qeyliyaan waa intaan marka waxa weeyaan anigu waxaan isleeyahay waxa umada niyad jabka lagu sameeyay iyo maaragtay beenta umada ay ku baratay madaxda in la bedelo imika fafaalo fiican baa muuqda waana isleeyahay Soomaaliland markaad aragto rag badan Cabdikariin oo kale markaad aragto oo shaqeynaya wardiyo tabcaya Soomaa ya haddii haneedka la siiyo kuwa ka wanaagsan bad ka luuqa ku jiro soo baxay oo soo boodi marka dadka wax la niyad jabina haddii kuwii ka horreeyo master hebel beesheega waa run bini'aadam ku niyad jaba u naca dadka
laakiin dadkeenu waa gob weliina may nicin iska daabay kornay muusaas iska daa kornay kaasaa u galay wax walba ka baabiye ilaahay gobonnimadooda isku abaalmarnay dad wanaagsan buu soo saaray insha allahu tacaala weli intaa talo qoraala qaaday madaxweynaha mawla tagtay uma tiri mudana madaxweyne aadan warbaahin ka hadal talooyinkan aan ku sidaa dee jidkaasi shaqada weyga baarlamaanka ku shaqeeya maaha dastuurka dad akhrida waa dalkaysa qaabka baarlamaanka ku shaqeeya waa public baarlamaanka furan buu shaqeeyaa doodaha iyaga soo jeedimaha iyaga qaraarada dastuurka saas u sheegay qaab furan isuguna la si shakhsiya si shakhsiya isuguna la xajalo waa si shakhsiya maxaa institution madaxtooyada waa adiga arkay wax bir iyo buur iyo askari hor yaalla yaaba waxbaanke maan dhow tolo madaxtooyada xildhibaanada ay soo diraan maba tegin maalintii dhowdee la doortay hogaanka ma garanaysa anu ma raaxin xildhibaana ka saaxiibana la soo diro dib baa baarlamaanka laga soo doonay مثلا هذو تلا دقيسان يا حبيبي والبا كنا جونا كسرنا يو تجو ديده وديده تلو لا يدوي ستا تلا ملا وانا كسوق دي بعطاه وانت كتاجر وكل كجواب لا شلي كجوابي هبلو حنوصان يا شلي كجواب هذا كده ويه وحل سعودي حلقة ولا الله دور الشضاء وقصتي عروت هذا حتى أنا كاجاد بحسي مجلي صادوق ومجع الدرية أذوق مركب مينة جرينين ده مجرنين قفك بلادك وعلوش تقول كده مجرنين أنا ما أنت مدحونا ما نوض وحكون شيء بس بمسألة حسن صوماته أما بسكرت أو قاعدة كرت ما كانت إيميل ده ما كرتيتي هل شغلك قلب قفك قلبي يسعد ما تجي حسيتي ما كانت دبي قيب سوق ملهي تيمي كملي هدان مالته دبا كسي قرب جوكا كو يلان وان مالتي واني هريده تفوري ويان ee koori muuse jidkii wuxuu umadu ay ma aragtay buu sheegatay uu ka bari dadkii ugu horeeyay bana malaha waxaan ahay dadkii la socday qofkii ugu horeeyay ee shirtaleed kaga hadlay xaaladiisa wallahi marka haddaan kula sii socon lahaa oran lahaa ninkan waa dhistay ilaali ayaan dambiga qaadan lahaa laakiin aanu isagoo shacabo halka joogo cud raadinayaan taageereed samay هذا مركان ركب باش إنه لا بدنا ونسك كبير تحسنا ورد تبعي بلاد كود الرسول ما هي الرسول كمان لا رعدة كان نقطة وحكورت على ده إلى كان نقطة محل الإيمان كي النور في لكن ما كان نين ما راح استاد أركتين وقلوا عدد كبيرته لما تبعه أجر باب الله مشرح الرأي ما كان عبقى عرفتي وضني ما أنا مشارك مع أنت ما يدعي والرملة دس يا تعرف حرام مالا المستقبل عن صوني كلها هم بيوجه لكن ده حسب فرصة كسية فرصة حلوة ده فرصة حسب كسية تيلو هاد بيجا حلو تدي بدك صورته هو جاك حسب عندوني ينقلوا سو ده كرمش تيانو كسمري وإسكت أي أيام مالتي دي بيت أنا بركي للشرح هي برلمانك وأنا سواركو إن العيد البك هو نفسنا لو كول يا ركلا اللي يقرب صراحة حسب يقلق الصباح يا ولا صراحة يا مركا حسب قانون عبادة كير عندي أنا حاير سي يهان كيس أنا كقريب قلي اللي تدكو رجع سود السنة ما هذا هذا مشرح باتاي أنا ألقى كوا بون هنجلياتي هذه لكن ألقى أنا يجوا بون جبت اللغة تكامل ستة تيجي مايو هو أنت حسن أنت نروح حسن مركا كاهم كم حيكون سيس يا كاهم حيكون سيس ده رجع ركتو ده كان هيته هو كان قطع ده وده دسي هرنا ورسكوه يدو هرنا اللفرو هذا ما دام حسب قد أنا قد هو قال كيسي هو أنا مو مضنيت أنا جي شيخ أحمد طيبيو صوت قرمشي ده شيخ أحمد طيب حلبان أحمد قعدي عنو هينده وانا لودي دي انا يا احمد نوت شنوحان دادي لي نودي رجل انت بدل laga soo ruusaytay haddii inta kaga tagno arinta reer awdal iyo tabashadooda maalintii dowladda khudbadaadii wad ku soo dartay arintaas bal ka war arintaas waa arin weyn oo jirta weeyaan dad badan oo awdal ka soo jeedo meelaha joogin waxay lahaayeen markii dagaalku socday aynu inaguna hawleena ka hadalnay yarka ka hadal waxa ku ceeb baa ku arrinkaasi laba meel ku tirsan laga hadli maayo maantana waxa weeyaan de gobolkii Sool iyo dadkii halka deganaaday watan de og baan joognaa soo garmis wixii dambe laga wada hadlayo aanin xoog wax lagu xaliyo ma qabada wada hadalku iman iyo halkii maanta inteena de haya wada joogto inteena inaan wixii wanaagsano oo dhexdeena wanaagsano hargeysa dhexdeeda la wanaajiyo burca dhexdeeda la wanaajiyo hargeysa iyo boor ma dhexdeeda la wanaajiyo aad iyo aad buu wanaagsan tahay oo inoogu wanaagsan tahay hadduu caqli yahayna uu daacad waddanka u yahayna intaa hagaajiyo waxa hagaajiya qaba ma janta anigu haddaan idhi boor ma shiraysana ها شر وحلو هاجي ولا شريه كل جيت تطلع كحمايه يا هالي كميل لنا شر ماي marka ma waxa doonaysaa in arintii la ascaanood oo kale ay buuro no may marba aniga shayga ugu horeeyo lahayba nabadgelyo way qorshayga ugu horeeyo falsafadeedana ku sheegay markii hore waan iloobadii weydiinaysay anigu waxaan aaminsanahay
arrintii Mahatma Gandhi iyo Martin Luther King iyo Nelson Mandela aaminsanayeen in peaceful demonstration in dadku ma aragtay ay isku bedelaan nidaam nabada oo wanaag lagu sameeyay aaminsanay qoriga wax la dhama ba aaminsanay habeenka jabad baa meel fuushay jabad baa qori qaadata la yiraahdo nafta way ka baxdaa because dawladnimada أنا محمد أيوة حان أكثر صنع وحر هذين يعني ومدة قاعد يدونيا إنه إن قفت لما دونيا قفنا ولا يدونيا إن قفنا ولا شيء سهجة جيان دونيا أو سدوا شلون ولا سكت دون ولا هذا لكن مركز تهاي قف كهمية إن جبهة سمايسو إن ضد قال سيسو إن تسلايا أنا دونيسو تهين قفنا ولا يسوي مس عتين ضد قال يصير سعطان you are killer بات هيدا I'm not killer أنا ما بتهاجر قريب بقى dadku haday barnaamijyaan inay si asluub leh board qaataan calan qaataan ay yiraahdaan saasan diidayna waan ogolahay waxa la yiraahdaa waa jidkii Mahatma Gandhi waa nidaamkaas aan aaminsan anigu jabadaha ma taageero dadka la isku dariya ma taageero dhiigga ummadda dhexdooda kala gaariya ma taageero laakiin ummaddu haday wax kala tabanayso haday magaalada togdheer wax tabanayso waxaan aaminsan reer togdheer inay intay sameystaan board sameystaan anagu ka soo qad Maxamed Ayban madaxweynaha anagu madaxweyne Maxamed Ayban kuma qanacsanin ay board intay ku qoraan ay saay u qoraan ay taagan والرجال وحرفت وقضب عنا سيح حرفت لا تقول شو بيسا مركا عنيو ما مسني شفت ما أنا مسني وحلا سبحانه كنا عايم مصيبة أنا وركا قيام أنا وركا كود جيستنا ده كيدون لك صوت شيء ده ولا ودي دون قيامة أنا جديك بلا آذان إن مالين حساب تيجي كم من نقطة اقتل صومها ودل صومها كلمة الأوقف كقول درب لي آيات بلا لقينا الواحد دنيا فكأنما أحي فكأنما ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن قتلها فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا هنا نقطة الدنيا أوقف كلمة اللي يكون بتبادو أوقف هذا اللي يكون بتبادو أوقف بروتكشن يقع ناس يكون بتبادو الدنيا marka reer awdal adigu maxaa ka maqan adaa misanta waxa ka maqan reer awdal waa doctor adiguna waa doctor ma qanacsano inta dood bay ku jiraan soo moogto inta meena doodin hadli inta garaadaysatay reebuur in la qancimeeyo baahnay la daweeyo dalka dantiisa ku jirta haddii la fadhiisto oo la yiraahdo walaalayaal waa kan waxa roo macquul maanta garooshiyaasina Soomaaliland gudaheega u yaala madaxweynaha ay dad badan kala soo burqanayaan inaynu dib isku cusboonaysiino inuu isqancinana wanaageena iyo jamhuuriyaddeena wada dhalashadeena ku jirta very simple laakiin wixii qofkii inta ka badan wada anigu lama socdo lama dhacsan raalli kamay wacadi warkeedu marka waxa jira dhaqdhaqaaq dibadaha ka socdo ay wadaan dad ka soo jeeda gobolka awdal oo ugaaskiina uu ku jiro dadka hoggaan cusub ee halka ku doorteen Canada adigu aragtaan saad aragtaa wax allaaliya wax anigu nimanka aragti kala ahay waxa kala socdo qofka 40 sanadood joogay halkaas iska shiraalkaas iska shiray dadka halka jooga muxuu yahay dadka anaga madaxa anaga oo masuul ma fahanti wixii isbedeliyo wixii ka maqan wixii soo kordhayna anaga halkan uga talnayna ni dibada jooga u talmaayo ana koori halka wax rabnaa progress baan rabnaa inaan horumar sameynaa doonayna waxa doonayna hoos socnaa doonayna laakiin ina dibna loo celiyo halka maanta laas canoodoo adugtay dadkii oo dhan qaxeen oo dibada ku qaxeen oo burbureen iskuuladii dhaqaatiirtii waxbarashadii wana noqolkaan hargeysa lama doonayo laas canood waxaan la qaylinay aan laas canood cid kale ma hadlay qofna ma hadlay inta shacabka burburayo hooyada iyo ilmaha xambaarsan ee dadka jilicsan ma diidana kuwaas hargeysa u diidano gacan libaaxda u diidanay dadkii talooyinka ku lahaayeen fikradaha caynkan yimaadaan mana taariikhda xus doonta halkana lama rabo ku cid kasto oo fikirka ku wadana aniga walaalkay ahaad Cabdulqaadir abeedan ahaade shaqo ku milyan laakiin la doodo oo wax la isweydiiyo oo la yiraahdo war waxaan kuma qanacsanin oo si peaceful loo yiraahdo oo si nabad loo yiraahdo handana beesad ma ko jidkaan rabaan inaan wax ka soo rabo marday aad iyo aad baad mahadsantahay xildhibaan Maxamed Abiib oo waraysigaasina siiyay Galad Media aad iyo aad xildhibaan kugu mahadcelinaysa aad iyo aad baad mahadsantahay